dhawaada daawadayaal barnaamijkan ugu talagalnay xuska munaasabada 26 Juun oo aanu kaga faaloonayno soomartooyinkii ama mas'uuliyadkii taariikheed ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo maray. dad badan ayaa laga yaabaa inay u qabaan in xiriirkii dadka reer Soomaaliland iyo Ingiriiska dhex maray uu bilaabmay 1884 isla markaana uu ahaa mid ka dhashay qaybsigii shirkii Berlin hase ahaatee daraha uu ka leeyahay gumaystihii Ingiriisku dalka Soomaaliland waxay ahayd mid la bilaabantay horaantii qarnigii 19 Ingiriisku waxa markab uu leeyahay uu ka soo agdhawaaday sanadku markuu ahaa 1825 magaalada Berbera markabkaas oo la oran jiray Mary Annie oo sidii badeecado ganacsi waxa dadkii deganaa xeebta Berbera ay falal dil ah kula kaceen shaqaalihii markabkaasi la socday isla markaasina waxa ay dhaceen badeecadihii saraa iyaga oo geesta kalena dab qabadsiiyay markabka laftiisii boqortooyadii Ingiriiska oo ka aadguday safarkaasi waxay qaadeen tallaabo ay weerar iyo duqeyn kaga geysanayaan dekedda Berbera waxaana ay xayiraad saareen dhaqdhaqaaqii iyo ganacsigii ka socday magaalada Berbera muddo 2 sanadood ah ayaana xayiraadaasi ay socotay taasi oo ku sinayd ilaa iyo 1827 dalkii reer Soomaaliland ee deganaa xeebaha magaalada Berbera waxa ay markii dambe u adkeysan waayeen cadaadiskaasi uu saaray Ingiriisku waxaana 1827 heshiis la galeen koox uu hogaaminayo sarkaal ka tirsan ciidamadii badda ee Ingiriiska saraakiisha Ingiriiska iyo odayaashii waxgaradkii deegaankii xeebta ee Berbera waxa ay heshiis iskula qaateen in la bixiyo magdhowga khasaarihii dhimasho iyo hantiyeed ee loo geystay markabkii Ingiriiska waxa kale oo Ingiriiska lagu wareejiyay qaar ka mid ah shaqaalihii markabka ee falkaasi ka badbaaday waxa kale oo qodobada heshiiskaasi ka mid ahaa in dadka Ingiriiska ee imanaya dhulka Soomaaliland iyo ganacsigooduba ay magan u yihiin odayaasha iyo waxgaradka deegaanka isla markaasina aan wax dhibaato ah lagula kici karin heshiiskaasi waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ee bilowga u ahaa xiriirka boqortooyada Ingiriiska iyo dadka reer Soomaaliland haddaba sanadku markii uu ahaa 1839 ayaa ay boqortooyada Ingiriisku qabsatay magaalada Cadan halkaas oo ay dekad weyn ka dhiseen waxaana ay Cadan noqotay meel ay ciidamadiisa u kala gooshiyay Hindiya iyo bariga Asia ay sahayda ka qaataan ahamiyad weyn u leh howlgalladiisa ku salaysnaa dhulboobka saldhigga uu Cadan ka samaystay waxa ay keentay in uu liishaanka saaro xeebaha Soomaaliland oo ku yaala goob istiraatiiji ah isla markaasina ku haboon in ciidamadiisa degan saldhigga cadmeed ay ka soo qaataan xoolaha ay hilib ahaanta u isticmaalayaan isagoo geesta kalena ku xisaabtamaya loolankii u dhaxeeyay dalalkii kale ee reer Yurub oo iyaguna dhulboobkaas la mid ah waday siiba dawladda Faransiiska oo tartan adag ka dhaxeeyay waagaasi intaasi kadib waxa Soomaaliland yimi sahmeeyal badan oo uu Ingiriisku soo diray kuwaasi oo ujeedadoodu ahayd inay daraasad ku soo sameeyaan dalka iyo dalka Soomaaliland deegaanadiisa kala duwan socdaalladaasi kuwii ugu horeeyay waxa ka mid ahaa kuwii uu magaalooyinka Saylac Herar iyo Berbera ku yimid sarkaal la oran jiray Richard Burton kaasi oo gumaystaha Ingiriisku isagoo ku xisaabtamaya sida ay u adag tahay dhexgalka dadka Soomaalida ah ee ku dhaqnaa dhulka waqooyiga Soomaalida isla markaasina ay ugu adag yihiin dhaqankooda iyo diintooda la soo baray afka Carabiga iyo Quraanka waxaana uu yimi isagoo markaasi la soo baxay magaca Sheikh Abdullah 1854 magaalada Saylac halkaasi oo uu uga sii gudbay magaalada Harar oo uu muddo 10 casho ah ku sugnaa kadib waxa uu soo gaaray magaalada Berbera muddadaasi uu joogay magaalooyinkaasi kala duwan waxa ninkaasi gaalka ah ee isu ekaysiinayay muslimka ama sheekha iska soo dhigay oo warbixino dhinac kastaba taabanaya ka qoray dabeecadaha nolosha dhaqanka iyo guud ahaanba nolosha ijtimaaciga ah ee dadka ku dhaqan deegaanada dhulkii Soomaaliland warbixinahaasi ayaana waxa ay saldhig u noqdeen kuwii dhiirigeliyay ee uu danihiisa gumaysi ee uu ka leeyahay dhulka Soomaaliland uga shidaal qaatay mustacmarkii Ingiriisku
muddo bil ah oo ku sugnaa magaalooyinka Seylac Herer iyo waliba Berbera ninkaasi Richard Burton inkasta oo shaki badan ay dadka waxgaradka ah iyo culimada adduunku ka muujiyeen haddana wax dhibaato ah looma geysan Mr Richard Burton ayaa haddaba mar labaad waxa uu ku soo noqday dhulka Somaliland isaga oo ay weheliyaan laba nin oo kale oo Ingiriis ah sanadkii 1855 ayaanu ka soo digay Berbera balse dadkii deegaanka oo horeba ninkan shaki weyn uga muujiyay ayaa waxa ay go'aansadeen in ay weerar ku qaadaan ninkaasi oo ciidan ku hubaysan warmo oo gaaraya sida warbixinta uu ka qoray oo ku qiyaasiyo ilaa 200 oo nin waxaana halkaasi lagu dilay mid ka mid ah raggii la socday Richard Burton laftiisana dhaawac wajiga ah uu soo gaaray kadib markii canka laga geliyay waran kaasi oo raadkiisii markii hadaba la soo gaaray sanadii 1870 Khaliif Ismaaciil oo ahaa wakiilkii dawladda Cismaaniyiinta ee dalka Masar ayaa dawladda Cismaaniyiinta u soo dirtay dhulkii Somaliland kuwaasi oo joogay ilaa iyo 1884 waxaana muddadaasi maamulkaasi Cismaaniyiintu ka talinayeen Harar Seylac Abulaxaar Berbera ilaa xeebaha bariga Somaliland 1884 Masaaradu waxa ay wajaheen dagaalkii Mahdiistka Suudaan kadib culayskaasi soo food saaray waxay Masaaridii ku wareejisay maamulkii Somaliland dawladda Ingiriiska sanadkii 1884 waxa xeebta Berbera yimi kabtan la oran jiray Frederick Hunter isagoo 40 nin oo booliiskii cadan u joogay ah u diyaariyay sidii uu ugu faragelin lahaa Somaliland waxaana uu heshiis la saxeexday waxgaradkii iyo odayaashii deganaa xeebahaasi heshiiskaasi oo lagu qortay saan isla markaana ka dhacay badda dusheeda intaasi kadib Captain Hunter waxa uu u doortay in uu Somaliland u joogo sarkaal la oran jiray Lieutenant Walsh waxaanu amray inuu noqdo commanderka Somaliland u qaabilsan Hunter waxa uu 40 kaas nin ee aynu soo sheegnay ee sida gaarka ah u tababaran iyo Walsh u soo diray Berbera Seylac oo wali baashahii Turkiga hoos tageysana waxa ay wakaalad gaar ah oo uu maamulo u noqotay Ingiriiska oo qabsaday sarkaal sare oo British ahna waa loo soo diray halkaasi muddo yar kadibna awoodo kale oo reer Yurub ah oo baadi goobay balmeeshan Afrika ku taala ee sidan istiraatiijiga u ah ee awoodaha kale ku hirdamayaan ayaa u soo dhigtay xeebtii badda cas ee Soomaalida kadib ka bixitaankii Masaarida Faransiisku waxa uu degay Obokh oo hadda ah dalka Djibouti 1885 ayaanu Talyaanigu qabsaday dekadii Musawac isagoo taageero ka helaya Ingiriiska oo isagu in uu weeqo oo meesha ka saaro rabitaanada iyo awoodaha Faransiiska doonayay Ingiriisku waxa kale oo uu jilbaha u dhigay sidii uu u sii adkeyn lahaa ilaashiga Somaliland taas oo qiimo istiraatiijiyadeed ugu fadhiday Ingiriiska oo marinka Suez oo uu Hindiya u marayo cadanina u dhowdahay ilaashanaya waa marka Britishku heshiisyada la saxeexanayo qabaa'ilkii Soomaalida ee halkaas deganaa waxaa jiray heshiis dhigayay qodobo dhowra oo dhex marayna haldoorkii iyo oday dhaqameedkii bulshada ee xilligaasi ku dhaqnaa dhulka Somaliland siiba deegaanada amba magaalooyinka xeebaha iyo gumaystihii Ingiriiska qodobada heshiiskan waxaa lagu kala qortay sida taariikhdu ay xusayso saan taasoo ahaa qodobo qolo kastaaba waa wakiiladii mujtamaca Somaliland iyo kuwii boqortooyada Ingiriiska ay si dhidiba adag leh isula dhaabadeeyeen ogolaansho fiicanna markaasi ku kala qaateen qodobadii heshiiskani qeexayay waxa ka mid ahaa inaanad haddii aad tahay mustacmarka Ingiriis dhulkayaga nooga kacayso mar allaale iyo marka aanu doono inaanad haba yaraatee dhulkayaga ku wareejin karin gacan kale amba saddexaad iyo arrimo kale kartiga garaadka bulshada oo sareeyay ayaa la oran karaa waxay horseed ka ahayd soo bandhigida qodobada heshiiskani uu koobayay balse may ahayn mid ku timi isu dhiganka awood sicilcisay oo wax dawlad ka weyn diidan tahay ku dadwici karaysay doodoodu haatee dariiqooda ahaa inay u daafuraan dareenkooda iyo doonistoodaba taasoo oday dhaqameedkii waqtigaasi heshiiskoodu uu ahaa mid ka turjumayay amba laga sawiran karo heerka garaafka ilbaxnimadooda iyo garashadooda sarreysay wuxuu ahaa isku day ay ku doonayeen
intii kaleana inay isaga caabiyaan dawlad guuna iyo gumaysi ka awood badan si markaasi aanu u noqonin mid idiisa loo sii daayo oo bilaa dabara